Cabduqaadir Calaale waa guddoomiyaha ururka jaamacadda isboortiga iyo xoghayaha ururka jaamacadda isboortiga Firdowso Xuseen Cali waxa ay markaa ka tirsan yihiin guddiga Olombikada waxa ayna qayb ka ahaayeen midowda jaamacadaha ay markaasi u diiwaan gashan yihiin xiriirka weyn ee markaasi lagu magacaabo guddiga Olombikada Soomaaliyeed waxayna qayb ka ahaayeen dadkii u ololeynayay inay ka qayb galaan tartanka jaamacadaha ee ka dhacay dalka Jeenaha waxa ayna u soo gudbiyeen guddiga Olombikada Soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay markaasi codsi u dirsadeen xiriirka ciyaaraha fudud si ay markaasi ugu qayb galiyaan tartanka oo markaasi ku saleysnaa in ay qayb ka yihiin jaamacadaha ay markaasi dalka Jeenaha iyo midowda jaamacadaha ee qaarkood ee dalkeena Soomaaliya oo aan si waafaqsaneen ay isku raacin ayaa si qarsoodi ah loo dusiyay Nasra Abuukar Cali oo ay markaasi soo qabanqaabiyeen ururka jaamacadaha ee ururkaasi hoostaga guddiga GOS. Xogtan ayaa waxa ay sheegaysaa in ay markaasi direen Cabduqaadir Calaale iyo sidoo kale xogayaha guud ee markaasi guddoomiyaha Olombikada Soomaaliyeed Cabdulaahi Tarabi oo kiiskan iska dheereynaya ayaa waxa uu markaasi dusha ka saaray guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud Marwo Khadiija Aadan Daahir sidoo kale guddiga qaybihiisa kala duwan ee markaasi xiriirka ciyaaraha fudud Khadiija oo maanta shir jaraa'id ay ku qabteen dalka Kenya ay ku sugan yihiin guddiga xiriirka iyo qaar ka mid ah kooxaha dalka oo markaasi qayb ka ahaayeen shirkan oo si wadajir ah ay ugu soo horjeesteen xilka qaadista ay markaasi ay sameeyeen guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada aysan ahayn mid sifo sharci ah ee loo maray. sidoo kale guddoomiye Khadiija iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka ciyaaraha fudud Macalin Mustafa ayaa ka warbixiyay in ay markaasi xilka ay ka qaadi karaan guddiga fulinta iyo sidoo kale naadiyada iyo madaxda ay ka tirsan yihiin xiriirka ciyaaraha fudud. sidoo kale waxa ay si wadajir ah labada guddoomiye u sheegeen inaysan lahayn wax urur waxbarasho ama ha noqdo ururka jaamacadaha iyo sidoo kale ururka dugsiyada aysan xiriirkooda ka tirsaneen waxaana xiriirada kale ee markaasi ay leeyihiin urur markaasi u diiwaan gashan oo ay qayb ka yihiin xilliga doorashada ay markaasi u codeeyaan guddiga Olombikada Soomaaliyeed waxaa ka tirsan guddiga markaasi jaamacadaha oo hogaamiyo Cabduqaadir Calaale iyo sidoo kale xoghaye ee ka tahay Firdowso Xuseen Cali oo inta badan ay markaasi ka muuqdeen doorashooyinka iyo shirarka waaweyn ay markaasi ka dhaca xiriirada dalka ka jira iyagoona sidoo kale waxa ay leeyihiin urur ay markaasi ku midaysan yihiin waxbarashada daladaha kala duwan kuwaas oo ururka jaamacadaha iyo ururka iskuuleedka ay markaasi leeyihiin xiriirada kala duwan oo ugu horeeya xiriirka kubadda cagta oo leeyahay qaybahaasi. markaan waxaan eegi doonaa magacaabista xulka qaranka Soomaaliya ee macalinkii hore ee loo magacaabay Macalin Rashiid oo horey aan u sheegnay inuu markaasi ku magacaaban yahay macalinka xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta heshiiskiisa ay soo dhameystireen xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Macalin Rashiid waxa uu dhashay dalka Morocco waxaana horey u soo leeliyay xulka qaranka Soomaaliya sanadii 2019 ayuu soo noqday kaas oo tartankii ay ka qayb galeen Arab Cup ee lagu qabtay dalka Qatar ee Soomaaliya qayb ka ahaayeen kaas oo wax guul ah aysan ka keenin tartankan ayaa gebi ahaanba xilka laga qaaday xiriirkii hore ee markaasi uu hogaaminayay Cabdiqani Siciid Carab. markaan xiriirkan uu hogaamiyo Cali Shiine ayaa fursad u siiyay in macalinkan uu markaasi leelin doono marka la xulka qaranka Soomaaliya ayaa bisha September ee fooda nagu hayso waxa uu ciyaari doonaa tartamo maxalli ah oo markaasi ay tahay isreebka koobka adduunka ee Soomaaliya ay la ciyaari doonaan dalalka Algeria iyo sidoo kale dalal waaweyn ee qaaradda Afrika wax badan markaasi ka soo ciyaaray.